بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبه wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub aan idinku soo gudbin doonaa caawa dhacdooyinka ugu dambeeya ee dunida iyo waxyaabaha kale ee cusub qodobada aan barnaamijka idinku haynana waxaa kamid ah ku qaadista Iran ee dagaal bariga dhexe gilgila waxay hornaantii mideysay Trump iyo Netanyahu aragtidooda halka nabadda iyo xabad joojinta ay kala fogeyn karto labada nin xiriirkooda waa halkii Soomaalidu ay ka tiri labadii xaqdaro ku heshiisa xaq baa isku dira Netanyahu oo diidan xalka Trump uu doorbiday si uu dhiiqada isaga baxo kaasi oo uu dareemayo in guuldarro uu dagaalkan ka dhaxli karo iyo sidoo kale eed ku soo wajahan Netanyahu taasi oo mugdi gelin karta mustaqbalkiisa siyaasadeed ee gudaha warbixin xasaasi ah ayaan idinkaga haynaa sheekadan barnaamijka sidoo kale waxaan ku soo qaadanaynaa xogaha laga helayo Mareykanka iyo Israel oo muujinaya khasaare dhimasho iyo dhaawac dagaalkan ka dhashay tan iyo markii uu bilowday inkastoo weli Israel la rumaysan yahay inaysan si sax ah u soo bandhigin khasaaraha dhabta ah ee dagaalka ka soo gaaray waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa macluumaadka khasaaraha soo gaaray dhinacyadan ee ka dhashay dagaalka waxaan kaloon barnaamijka ku eegaynaa caawa warbaahinta Ruushka oo falanqeynaysa xaaladaha bariga dhexe iyo xabad joojin dabin lagu gaaban ku noqon karta Iran iyo xulafadeeda oo Xisbullah Lebanon ay ugu horeyso haddaba Israel macyaar cusub ayay ka bilaabaysaa Lebanon kadib heshiiska Iran iyo Mareykanku ay wada galeen warbaahinta lafagur xaaladahan ay ku sameeyeen khubaro Ruush ah ayaan idin soo gudbin doonaa dhammaan macluumaadkan oo faahfaahsan ayaad kaga bogan doontaan daqiiqadaha barnaamijka ee caawa ku soo dhawow qaari online qarni hore waxaa jiray barashada quraanka qofku uu u dhaqaaqo dugsiyada qiraa'ada hadda waa qaab online ah qaari online waxa uu bixiyaa barnaamij dhammaystiran oo ay dhigayaan macallimiin leh in ka badan khibrad 5 sano ah oo ay wax barayeen carruurta ku nool dibadda tiyoo loo adeegsanayo hab waxbarasho oo ku habboon deegaanka reer galbeedka waxaana uu bixiyaa tijaabo bilaash ah oo 7 maalmood ah iyo casharro waxbarasho oo bilaash ah haddaba qabso tijaabadaada bilaashka adigoo la xiriiraya WhatsApp-ka shaashadda kaaga muuqda ama maantaba ka diiwaangeli ilmahaaga qaari online shirkadda EasyGo Travel waxay idin haysaa tigidhada xajka iyo cumrada iyo tigidhada safarada kale ee caadigaaba EasyGo waxay wakiil uga tahay UK iyo Yurubta kaleba shirkadda adeegyada xajka iyo cumrada ee Al Rajixi ee Sacuudi Arabiya EasyGo mar walba waxaad ka helaysaa adeeg iyo qancin macmiil oo ku raali geliya hamoogaan ee la xiriir EasyGo Travel adigoo la xiriiraya telefoonada iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda soo dhawaada mar kale daawadayaal habeen wanaagsan caawa waxaynu ku bilaabeynaa barnaamijka macluumaadka xogaha laga helayo Mareykanka iyo sidoo kale Israel kuwaasi oo muujinaya khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo ka dhashay dagaalka tan iyo markii uu soo bilowday inkastoo weli Israel og yahay inaysan warbaahintu u ogolaan gudbinta khasaaraha dhabta ah ee dagaalka ka soo gaara iyadoo xanibaado adag saarta warbaahinta tan iyo markii uu dagaalka bilowday kana bilowday bariga dhexe 28kii bishii Febraayo askar Mareykan ah ayaa la dilay 10 kalena waa la dhaawacay sida ay muujisay xogta ka timid waaxda dagaalka ee Mareykanka wasaaradda caafimaadka Israel ayaa sidoo kale waxay shaacisay in 7645 Israa'iiliin ay ku dhaawacmeen weerarada intii lagu jiray dagaalkan wargeyska The Washington Post ayaa soo xigtay xog ka soo baxday Pentagon-ka oo sheegaysa in marka laga reebo 13 dhimasho ah qiyaastii 370 askari oo Mareykan ah ay dagaalka ku dhaawacmeen ugu yaraan 12 ka mid ahna ay yihiin dhaawacyadu kuwa daran The Washington Post ayaa warisay in gudoomiyaha taliska sare ee ciidamada wadajirka ah General Duncan uu hadalkiisa shir jaraa'id oo si wadajir ah ula qabtay ogayaha dagaalka Mareykanka Pete Hegseth uu ku bilaabay isagoo u mahad celinaya 13 askari ee Mareykanka ah ee ku dhintay dagaalka ilaa iyo hadda isagoo sheegay in nafurnimadoodu ay aad muhiim ugu tahay ayna uga mahad celinayaan weerarada Iran ayaa sidoo kale sababay waxyeelo weyn oo soo gaartay xarumaha saldhigyada Mareykanka ee ku yaalay gobolka taasi oo maamulka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka gaabsanayo inuu si faahfaahsan uga hadlo khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarada lagu beegsaday saldhigyada Mareykanka ee bariga dhexe khasaare xoogan balse la qarinayo ayaa ka jira xagga Israel wasaaradda caafimaadka ayaa maalintii Arbacada ahayd waxay baahisay xog lagu sheegay in tirada dadka dhaawacmay tan iyo bilowgii dagaalka Iran ay gaartay ilaa 7645 qof oo yaraana ama ay ku jiraan 2811 qof
oo dhaawacmay iyagoo ku sii jeeday sida hadalka loo dhigay meelaha gabaadka looga galo gantaalada marka seeriga digniinta ka bixiya gantaalada uu dhawaaqo. Horey wasaaraddu waxay subaxnimadii Talaadada sheegtay in tirada dadka dhaawacmay ay gaartay 7,183 ruux, taasi oo ka dhigan 462 dhaawac oo cusub la diiwaangeliyey tan iyo markaasi. Tirooyinka cusub ay shaacisay wasaaradda caafimaadka Israa'iil kuma aysan jirin tirada dhimashada dadka weerarada ku dhintay, inkastoo xog ay soo saartay ama uu soo saaray Machadka Daraasaadka Amniga Qaranka Israa'iil bartamihii bishii hore ay muujisay in 16 Israa'iiliyiin ah la dilay halka adeega ambalaaskana uu diiwaangeliyey dhimashada 15 ruux oo ay ku jiraan 9 qof oo ku dhintay weerar gantaal oo ka dhacay deegaanka Beit Shemesh iyo 2 askari oo ku dhintay koonfurta Lubnaan. Militariga Israa'iil ayaana waxay saaraan xanibaado adag warbaahinta si looga hortago in la daabaco khasaaraha ka dhashay weerarada jawaabta ah ee Iiraan iyo sidoo kale weerarada Xisbullah ka imaanaya. Wabarigii Arbacada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu ku dhawaaqay joojin 2 toddobaad ah oo lagu hakiyay weerarada lagu hayo Iiraan, balse arrintaasi waxay ku xiran tahay ama ku xirnayd furitaanka buuxa ee degdega ah ee marinka Hormuz iyo xadba joojin labada dhinac ay gaaraan. Arrintani waxay timid waxyar kadib 2 saacadood ka hor waqtiga kaba dambaysta ahaa ee Trump uu qabtay in Iiraan ay ku furto marinka Hormuz si ay u aqbasho heshiiska hor inta aan la burburin, waxa uu ku tilmaamay ilbaxnimada Iiraan gabi ahaanteedba. Markii dambe ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa cadeeyay taageeradiisa go'aanka Trump uu hayo, isagoo sheegay in Tel Aviv ay taageerayso dadaalada Mareykanka ee lagu hubinayo in Iiraan aysan noqon sida uu hadalka u dhigay caqabad hanjabaad nuclear gantaal ama argagixiso ku ah Mareykanka, Israa'iil, dariska Carabta ee Iiraan iyo dhammaan dunida sida uu sheegay, balse waxa uu adkeeyay in xabad joojintu aysan ku jirin meelaha laga hirgelinayo dhulka Lubnaan, balse Tehran ayaa shardi ka dhigaysa in xabad joojinta lagu soo diro Lubnaan haddii kale ay noqon doonto mid aan shaqayn oo hal bacaal lagu lisay yahay dadaalkeeda. Watahay markan aynu u talaabno warbixinta xigta ama sheekada xigta ee barnaamijka. Israa'iil dagaal kale ayay gobolka ka bilaabi doontaa kadib heshiiska Iiraan iyo Mareykanka ay wada galeen ee ku aadan xabad joojin dagaalkan lagu hakiyay. Wargeysyada Ruushka waxay falanqeynayaan ku dhawaaqista xabad joojinta u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan iyo waxyaabaha ka dhalan kara, iyagoo ku tilmaamay heshiiskan inuusan ahayn dhamaadka dagaalka balse uu yahay xabad joojin xeeladaysan oo ay keeneen kakanaanta goobta dagaalka iyo xisaabitaanka siyaasadeed ee gudaha Washington, iyadoo ay jiraan su'aalo adag oo ku saabsan inta ay la eg tahay awoodda Tehran ay ku qasbi karto rabitaankeeda wadahadaladan adag, iyadoo ciwaan looga dhigay ma ka hadli karnaa dhamaadka dagaalka bariga dhexe. qabiirka arrimaha gobolka Leonid Tsokhanov ayaa maqaal uu ku qoray wargeyska Kommersant ee dalkaasi waxa uu ku sheegay in weli ay hore u tahay in si buuxda loo xaqiijiyo guusha Iiraan ay ku aadan qasbidda shuruudaheeda cid kale ama ku qasbidda shuruudaheeda cid kale, inkastoo uu qiray in qodobada la soo jeediyay ay u muuqdaan kuwo gabi ahaanba aan u wanaagsanayn Washington iyo sidoo kale Tel Aviv oo dagaal ka bilaabay. Tsokhanov waxa uu sharaxay in aqbalaadda dhinacyada Mareykanka iyo Israa'iil ee qodobo la xiriira madaxbannaanida Iiraan ee marinka Hormuz iyo heerarka kobcinta uraniumka ay ahayd tallaabo degdeg ah oo lagu joojinayo xiisad ku dhaweyd inay faraha ka sii baxdo, isagoo tilmaamay in maamulka Mareykanku uu isku dayayo inuu tallaabadan ku helo waqti nasiino uu ku qaato, taasi oo sharaxaysa sababta sii socoshada weerarada militari ee ilaa waqtigan lagu dhawaaqay heshiiska lagu hakiyay dagaalka. joogteynta xabad joojintan waxay ahaan doontaa mid ku xiran furinta Lubnaan, iyadoo Israa'iilna ay sii wado howlgaladeeda ka dhanka ah Xisbullah iyo sidoo kale Lubnaan, taasi oo ka dhigaysa Iiraan mid ku jirta xaalad sugitaan ah, iyadoo sii wado taageerada ay siisay xulafadeeda Lubnaan si ay u ilaaliso booskeeda. iyadoo la raadinayo cidda ka dambeysay heshiiskan, wargeyska Argument Evact ayaa kaga hadlay doorka Shiinaha waraysi uu la yeeshay Vedov Loginov oo ah tiftiraha Russian World Affairs. Loginov ayaa aaminsan in ammaanta fagaare ee madaxweyne Donald Trump uu jeediyay Beijing ay tahay oo kaliya
hordhac lagu xaqiijinayo guusha booqashadiisa soo socota ee Shiinaha iyo helidda faa'iidooyin ganacsi iyo kuwo dhaqaale isagoo xusay in doorka Shiinaha ay ahaa mid taageero dhinaca niyadda ah kana badan dhexdhexaadin toos ah laakiin waxa uu shaaca ka qaaday in dhexdhexaadiyaasha dhabta ah ee arrintan uu ahaa Pakistan taasi oo ugu wacan tahay xiriirka adag ee hoggaankeeda militari uu la leeyahay maamulka Trump iyo xiriirka taariikhiga ah ee dhow ee ay la leeyihiin Tehran isagoo xusay in Beijing ay door biday inay gadaal ka joogto oo ay taageerto keliya dalka Pakistan iyadoo aan si toos ah usoo faragelin arrimaha ku aadan nabadeynta iyo xal u raadinta dagaalka bariga dhexe ka socday Alexander Brachev oo ah bare ku-xigeen ka tirsan jaamacadda Plekhanov ayaa falanqeyn uu kaga qayb qaatay wargeyska Muksafisky Komsomolets isagoo ku tilmaamay ku dhawaaqista lama filaanka ah ee xabajoojin leh dhadhan qaran sida uu sheegay khabiirkan ama madaxani dib u gurashada daqiiqadii ugu dambeysay Trump ma ahayn mid ku dhalatay nabadoonnimo balse waxay ahayd dareen badbaado siyaasadeed oo saafi ah taasi oo uu door bidayo inuu dagaalkan kaga dib uga gurto taasi oo ka dhalatay caro sii kordhaysay oo ka jirta gudaha maamulkiisa iyo bulshada Mareykanka kuna saabsan khasaaraha ee qalab iyo sidoo kale midka nolosha ee uu kala kulmayo dagaalka bariga dhexe qabiilka Ruushka ah ayaa ka digay xabajoojintan inaysan ahayn fursad ay Iiraan ku xoojiso awoodeeda balse ay tahay xeelad Mareykanka uu degay si looga fogaado burbur dhow oo gudahiisa ka bilowda Brachev waxa uu ku soo gabagabeeyay faaladiisa inuu jiro qorshe xeeladeysan oo bedelaya xudunta ama xarunta rabshadaha dhulka Iiraan iyadoo loo weecanayo xagga Lubnaan dagaalkan halkaasi laga bilaabayo waxaana la filayaa inay noqoto bartilmaameedka ugu weyn ee xiga ee howlgallada militari ee Israa'iil iyo Mareykanka iyadoo lagu hoos gambanayo xabajoojin lala galay Tehran Iiraan waxay ka soo baxday wareegan iyadoo heshay heshiis faa'iido leh gaar ahaan dhinaca xakamaynta maraakiibta ee marinka Hormuz oo ahaa faa'iido ay adag tahay inay ka tanaasusho Iiraan waxaana uu sheegay in heshiiskan uusan macnihiisu ahayn nabad degdeg ah balse uu yahay oo kaliya hakad dheer oo u dhexeeya cutubyada dheer oo riwaayad goboleed sida uu hadalka u dhigay iyadoo dhammaan dhinacyadu ay horeba ugu diyaar garoobeen wejiga xiga ee iskoorimaadka waa hagaag daawadayaal waxay noo soo socotaa warbixin ku saabsan taageerada Mareykanka ee Israa'iil oo sii dhammaan karta kadib dhaliilo ka yimid gudaha iyo sidoo kale xiriirka labada dhinac ee Trump iyo Netanyahu oo dagaalka wadajir ku ahaa oo hakinta dagaalka ay xumeyn karto xiriirkooda isla markaana ay burbur ku dhaweyn karto oo u gudbi doonaa warbixintaasi balse marka hore aynu ku hakanno qadar xayeysiin ah wargelin muhiim ah ma doonaysaa waalidkaaga oo dhintay ama sariiryaal oo xanuunsan in lagaga soo cumreeyo bisha barakaysan ee Ramadaan cumrada bisha barakaysan ee Ramadaan waxay u dhigantaa xaj lala xajiyay nabiyullaahi Muhammad nabadgeliye naxariis korkiisa ahaatee waxaana fursadan kaaga faa'iideynaya shirkadda At-Taqwa oo ku sameysay qiimo dhimis ballaaran inta lagu guda jiro acmaasha cumrada waxaa lagu soo duubayaa muuqaallo ku saabsan qaabka ay cumradu u dhacday haddaba wixii faahfaahin intaa dheer nagala soo xiriir cinwaanada iyo taleefannada shaashada kaaga muuqda ku soo dhowow shirkadda Qibla Homes naqshad qaab wacan weeyo Qibla ay farsamaysay ha ka qadina u kaalay guryaha Qibla Homes Qibla Homes waxay kugu diyaarisay Nairobi South Sea iyo Mombasa Nyali apartments iyo villas ka kooban 5 4 iyo 2 bedrooms oo dublekisa iyo sidoo kale 4 3 2 iyo 1 bedrooms oo caadi ah guryaha qaar waxa ay leeyihiin qolka shaqaalaha dhismayaasha Qibla Homes waa Turkish style casri ah waxaana loo dhammaystiray wax kasta oo guri casri ah u baahan yahay waxaana shirkaddu ay kugu baaqaysaa qiimo dhimis soconaysa muddo 5 bilood oo u dhiganta 150 maalmood faahfaahin dheeraada kala xiriir nambarka shaashada saar soo dhawaada mar kale daawadayaal habeen wanaagsan weli waxaad daawanaysaan barnaamijka maxaa cusub oo si toos ah idinkaga imaanaya istuudiyaha labaad ee HBN barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogga internetka ee kala duwan sida Facebook, YouTube, Twitter iyo Telegram-ka wala degdeg ah macluumaad kale faalooyin waxaad ka heli kartaan oo ka akhrisan kartaan bartaano internetka ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirno HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka hagaag markan aynu ugu dubno sheekada ugu dambeysa ee barnaamijka xiriirka Trump iyo Netanyahu oo saaxiibada waxa ayaan adag ku taagnayn kadib markii Mareykanku heshiis hakinta dagaalka ah la gaaray Iiraan iyadoo ay muuqanayso suurtagalnimada in Israa'iil aan lagala tashan arrintaasi wargeyska Ingiriiska ka soo baxay The Times ayaa meesha ka saaraynin heshiiska xabad joojinta ku meel gaarka ah u dhaxeeya Mareykanka iyo Iiraan uu sababi karo xiisad u dhaxaysa labadii nin ee dagaalka kula jiray
jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iiraan kuwaasi oo kale ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu. Maqaal uu arrintan ka qoray wargeyska ayaa su'aal geliyay sida gudbida dagaal oo lagu bedelayo nidaamka Iiraan oo lagu gudbayo nabad wada hadal lagu gaarayo ay u keeni karto kala jab weyn oo xiriirka Netanyahu iyo Trump ku yimaada. qodobka ugu weyn ee xiisadda waa su'aasha ah Netanyahu uu qiyaamay Mareykanka si uu ugu riixo dagaal musiibo iyo khasaare leh, arrin uu mas'uulka Israel marar badan beeniyay jiritaankeeda. hase yeeshee toddobaadyada soo socda ayaa imtixaan gelin doona xiriirka labadan nin, halka Trumpna uu doonayo hadda guul diblomaasiyadeed oo ku iibin karo shacabka Mareykanka ka hor doorashada soo socota. Netanyahu waxa uu diiradda saarayaa in heshiis kasta oo waara uusan iska tiri karin danaha amniga Israel ee asaasiga ah, gaar ahaan barnaamijka gantaalada Iiraan iyo taageeradeeda xulafada gobolka sida Xisbullah Lebanon oo khatar weyn ugu arko. 11 Febraayo, Netanyahu iyo agaasimaha Mossad David Barnea ayaa la sheegay inay bandhig ku sameeyeen qolka howlgallada ee aqalka cad, iyagoo ballan qaaday inay burburinayaan awoodda nukliyeerka Iiraan islamarkaana ay ridayaan dhammaanba jiritaanka nidaamka Iiraan ka taliya ee kacaanka. waxaana kasii muhiimsan dhinaca Israel ayaa waxa uu saadaaliyay in nidaamka Iiraan uu aad daciif u yahay si uusan islamarkaana dabcan uusan awoodi doonin inuu xanibo marinbiyoodka Hormuz oo ganacsiga dunida muhiim u ah. qiimeyntaasi oo markii dambe lagu cadeeyay inay qaldan tahay filashadeeda markii Iiraan ay xanibtay marinbiyoodka muhiimka u ah dhaqaalaha caalamka. inkasta oo Trump uu sii waday fulinta qorshayaasha Netanyahu, hay'adaha sirdoonka Mareykanka ayaa shaki waxay ka muujiyeen arrintani, iyadoo agaasimaha CIA-da John Ratcliffe uu qorshaha Israel ee beddelka nidaamka ku tilmaamay riwaayad been ah oo aan run noqon karin, xitaa haddii la wiiqi karo awoodda militariga ee Iiraan. hanjabaadda ugu weyn ee isbahaysiga Trump iyo Netanyahu waa nacaybka Trump uu qabo in uu muuqdo mid nacas ah haddii wada hadallada nabadda ay keeni waayaan tanaasul yar oo ka yimaada xagga Iiraan. waxaana suurtagal ah in warbaahintu ay u sawirto laftiisa inuu yahay nin baqday oo ka laabtay dagaal uusan xallin karin. sida ay qabaan falanqeeyaasha, Trump waxa uu raadin karaa cid uu dusha ka saaro eedda dagaalkan ee guuldarrada noqon karta. waxaana suurtagal ah in hogaamiyaha Israel Benjamin Netanyahu uu noqdo bartilmaameedka Trump uu leeyahay eedda uu dusha ka saarayo, gaar ahaan maadaama uusan ka labalabayn inuu dhaliilo oo uu ku eedeeyo daacaddarro kadib doorashadiisii 2020. haddii Trump uu kusoo gabagabeeyo dooda in Netanyahu uu ahaa mid aan daacad ahayn marka laga hadlayo waxtarka duqeymaha cirka, cawaaqibka ka dhalan kara ayaa noqon kara mid weyn oo aan la saadaalin karin kuna saabsan xiriirka Mareykanka iyo Israel. inkastoo kala duwanaanshiyo hoose uu jiro, The Times waxay saadaalinaysaa in natiijada dhow ay tahay in labada dhinac ay sii muujiyaan midnimo, maadaama labada hogaamiye ay leeyihiin dano siyaasadeed oo waaweyn kuna saabsan ku dhawaaqista ah in dagaalka uu guul weyn yahay. sidoo uu aragti ahaan qabo, Netanyahu wuxuu ku qanacsanaan lahaa in uu la wiiqo awoodda militariga Iiraan, halka Trumpna uu sheegan karo arrintaasi iyadoona loo eegin xaqiiqada dhabta ah ee goobta dagaalka ka jirta. in Iiraan militari ahaan la burburiyey sababtoo ah qirashada fashilka dagaalku waxay wiiqi lahayd sheekada guud ee xilligiisa labaad. xiriirka labada dhinac halkee ku noqon doona? muddo dheer dagaalka wadajirka ah ee ka dhanka ah Iiraan ayaa dardargeliyay isbeddel ku yimid xiriirka labada dhinac u dhexeeya, waxaana uu sababay carag ka dhex dhalatay siyaasadda dhexe ee tan bidixda ah ee Mareykanka kuna saabsan sida dalkooda uu si buuxda ugu janjeero xagga Israel iyo taageeradeeda. mid ka mid ah natiijooyinka isbeddelkan ayaa ah in tiro sii kordhaysa oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga Mareykanka ay ballan qaadeen inay diidi doonaan deeqaha ka yimaada guddiga arrimaha dadweynaha ee Israel ee Mareykanka ee magacooda loo yaqaano IPAC oo saameyn badan ku leh siyaasadaha gudaha Mareykanka, taasi oo ka turjumaysa kala qaybsanaan siyaasadeed oo xoogeysanaysa kuna saabsan taageerada aan shuruuda lahayn ee Israel Mareykanku siiyo. maqaalkani ayaa si weyn u xusay xaqiiqo kale oo dah la saaray, taasi oo ah in Israa'iiliyiintu dhammaan ay si weyn u taageereen qaadista dagaalka Iiraan, halka dadka Mareykanka ahna aysan sidaas samayn oo wadajir u taageerin. waxaana ugu dambeyn warsiduhu uu kusoo afmeeray warbixintiisa in farqigan oo ay weheliso dabeecadaha isbeddelka leh ee Trump iyo Netanyahu ay muujinayaan in xabad joojinta ay dhexdhexaadisay Bakistan ay kasii kala fogeyn karto labada nin xitaa in ka badan tan uu dagaalka abuuray ee xidhiidhkooda.
وهاجاك داوديال guud ahaan caawa intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii maxaa cusub oo aynu ka eegaynay dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dunida iyo sheekooyinka kale ee ka cusbaa si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan kusoo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ee kala duwan ama aadan hore ugu xidhnayn hadduu kusoo biir tan iyo intaan dib ugu kulmi doono barnaamij midkan lacayna waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo qurbo joogta Soomaaliyeed ee ku nool qaaradaha adduunka sida Yurub, Amerika, Asia, Australia iyo Afrika waxay hadda kadib si dhib la'aan ah lacagaha ugu soo diri karaan dalka Soomaaliya iyagoo adeegsanaya xawaalada caalamiga ah ee Ria Money Transfer kuna soo diraya adeegga casriga ah ee eBesa oo ka hawlgala guud ahaan Soomaaliya hoostagana bangiga caalamiga ah ee IBS haddaba sidee lacag loogu soo diri karaa eBesa ugu horeyn soo fur abka Ria Money Transfer dooro dalka Soomaaliya kadibna geli lacagta aad dirayso ka dooro halkan habka lacag diristaada oo ah mobile wallet sidoo kale dooro payment methodka aad rabto in lacagta aad dirayso ku bixiso kadib riix continue geli magaca qofka aad lacagta u dirayso dooro mobile walletka aad lacagta ku dirayso oo ah eBesa kadib geli lambarka qofka aad lacagta u dirayso adigoo marka hore dooranaya koodhka Soomaaliya oo ah +252 geli xogta dheeraadka ah ee qofka aad lacagta u dirayso sida xiriirka idinka dhaxeeya halka uu joogo iyo sababta aad lacagta ugu dirayso kadibna riix continue hadda waa dirtay lacagta isla markiiba ayay ugu dhacaysaa eBesihiisa qofkii aad u dirtay isagoo jooga gurigiisa ama goobtiisa shaqada eBesa goob kasta iyo goor kasta